dabcan khudbadii ma harin khudbadii xukuumadda Puntland ee ku soo bandhigaysay waxqabadkeeda waxa halka ka akhriyay wasiirkii warfaafinta iyadoo qoraal ah iyadoo muuqaalana waa daawateen arrimaha Soomaaliya oo dadku aad u xiiseynayeen waxa ku filan intii ay ka yiraahdeen senator Faroole iyo madaxweyne Xasan Sheikh iyo madaxweyne Axmed Madoobe waxaan rabaa kaliya inaan halka uga mahadceliyo dhammaan dawladda iyo shacabka Puntland gaar ahaan howlwadeennada xukuumadda ee u sareeyaan wasiirada wasiir ku-xigeenada wasiir dawlayaasha agaasimayaasha guud iyo waaxaha iyo qaybaha iyo dhammaan shaqaalaha ee xukuumadda Puntland iyo baarlamaanka guddigiisa joogtada ah iyo mas'uuliyiintiisa iyo garsoorka Puntland laamaha dawladda ee Puntland iyo howlwadeennadooda shaqadii muddadii 2 sano ahayd soo qabsoontay gaar ahaan sanadkii u dambeeyay waxaan runtii markhaanti ah in dadaal badan iyo waqti badan la geliyay oo aan wax la hakran wixii la kari karin waxqabadka halka laga sheegay dhowr meelood baan rabaa inaan xuso oo runtii u baahan dadku inay aad isha ugu hayaan waxa warbixinta ku jirtay 25 kilomitir oo jid ah oo si casri ah loo dhisay iyo 100 iyo ziyaado kilomitir oo dayactir ah runtii waxaan u malaynayaa inay tahay markii ugu horeysay burburka kadib jid si casri ah oo dhameystiran loo dhiso oo aan hay'ad iyo dawlad kale aysan bixin dawladda Puntland ayaa bixisay waxaas waad ogtihiin wadada meermeer oo runtii khatar ku ahayd isku socodka iyo jidka hadda 5 kilomitir maraya ee Ceel Daahir ergaabo ku socdo oo aan rajeynayno maalmaha soo socda inuu 30 kilomitir gaari doono 80 kilomitirna uu gaari doono laakiin midka magaalooyinka kale laga dhisay oo laga dhisay magaalooyin badan oo kamida Puntland waxaa dhisay Puntland iyo shacabkeeda oo isku tashaday waxay muujinaysaa guul weyn waxa kale oo iyadana farxad ah oo in la xuso u baahan dekada Garacad oo iyaduna dawladda iyo maalgashadayaal Soomaaliyeed ay dhiseen oo iyadana la rajeynayo inay furanto waa mashaariic horumarineed oo mug weyn oo aan ajnabi uu shaqo ku lahayn waxa kale oo iyadana sharaf ah in mashaariic horumarineed oo maalgashi ah oo dalal ajnabi ah aan rajeynayno inay aaminaan Soomaaliya iyagana qaybna ay bilaabato qaybna ay socoto waxay maalgashan doonaan korontada waxay maalgelin doonaan oo casriyeyn doonaan garoomada waxay ku jiraan inay warshado dhisaan waxaan rajeynaynaa in mashaariic fara badan oo horumarineed dadka u ah laakiin maalgashi ah inay iyagana hirgalaan intaas inay dawladda Puntland u hirgasho 3 qodob baa saldhig u ah qodobka ugu muhiimsan waxa weeye maareynta maaliyadda oo runtii dawladdan ay waqti badan gelisay si loo helo howlwadeenno guto waajibkooda oo mushaharkooda iyo gurnooyinkooda iyo adeegooda uu joogto noqdo waxa oo ciidan iyo shaqaale rayidba ah waxa kale oo isagana gundhig u ah nabadda maxaa yeelay waa la kala horumarin karaa nabadda lagama shaqeyn kar lahayn haddaan dhaqaalaha iyo maaliyadda ay sugnaan lahayn sidoo kale horumarkuna ma hirgelin lahayn haddaan nabad sugnaan lahayn isbeddelka guddiga dib-u-habeynta ciidamada ay ka qabteen ciidamada Puntland runtii waa wax mudan in la ammaano oo lagu faano oo dhiirigelin u noqon karto Soomaalidu inay qabsan karto waxaan kaloo rabaa inaan cadeeyo ciidamadaas mushaharooyinkooda la kordhiyay tababarkooda agabkooda dareyskooda 1 shilin oo ajnabi taasna kuma jiro dawladda Puntland bixisay waan ogahay meelo badan baa ciidamada tababar laga siiyaa Puntland waxay ka heshay oo ciidankaas annaga hadda aan sheegayna kumaana darin ciidanka BSF-ta iyo BNBF-ta oo dawladda Imaaraadka iyo Mareykanku ay si gaar ah u tababari jireen
ciidamada aan sheegayno oo tababarna kuwa ma ah oo ciidamadii traditionalka ah ee daraawiishta iyo booliiska dawladdu sida tooska ah ay u maamuleysay kuwa kale ee Soomaaliya inteeda badan ka hirgalay waxaa galay dhaqaale dawladeed iyo dalal aan saaxiibanahay ka yimid inta badan marka iyadana runtii waa guul weyn oo aan la filayn inay hirgalayso laakiin alxamdulillah lagu guuleystay dadkii ka shaqeeyana waa uga mahadcelinay waxaan kale oo rabaa runtii inaan halka uga bishaareeyo isbeddelka maamulka maaliyadeed markaan leeyahay gundhig buu ahaa waxa aan qabanaynay haddaysan jiri lahayn inaan maaliyadda hagaajino ma noo suuroobideen maxaa yeelay kharashka ku baxaya ciidanka dib habeyntiisa kordhinka mushaharooyinkiisa ma suurogeleen sanadkii 2020 waxaan ku guuleysanay iyo 2019 inaan kor u qaadno mushaharooyinkii golayaasha dawladda oo ugu muhiimsanaayeen golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ayaan waxaan kor u qaadnay 200% wax ka badan 300 hadeen ahayn maxaa yeelay mushaharka wasiirku wuxuu ahaan jiray $800 markaan nimid $3,000 baa la gaarsiiyay mushaharka golaha wakiilada wuxuu ahaan jiray 800,000 iyo xoogaa 200 gudoomiye markuu laga daro 2,500 baa la gaarsiiyay ciidamada $700 baa loogu yimid maanta 250 way maanta waxaa halka lagaga dhawaaqay in shaqaalaha rayidka bisha January ay shaqaale u kordheen oo qofkii ugu yaraa ee mushaharkiisa ugu yaraa ee nadaafadda iyo ka shaqeyn jiray oo 110% uu kordhi doono ilaahay idankiis marka ay soo baxdo waxay noqon doontaa wax ku filnaan doona shaqaalaha waxa kale oo lagu guuleystay in la sameeyo grade-ka shaqaalaha ma aha waxa mar kordhaya wuxuu noqon doonaa mid walba wuxuu yeelan doonaa kuwana grade 1 iyo 2 laba mar bay dalici doonaan kuwa saddex mar bay dalici doonaan waxaan iyadan u gudageli doonaa in grade-kaas iyo basic salary-ga way waxaan ka hadlayno aan gunooyinka ku jirin runtii waxaan dhihi karaa arrintaas waa arrin iyadana bogaadin mudan dadkii ka shaqeeyana ay mudan yihiin in abaalmarin la siiyo aan rajeynayno dadkaas qaybo ka midana halka aan ka abaalmarino waxaa lagu guuleystay bangiga Puntland isbeddel la taaban karo waad aragteen masawiradii bay ku jireen daar 4 dabaq ah oo si casriya loo qalabayn doono oo kulligeed electronic ah oo systemka maaliyadda oo dhan hadda wuxuu ka guuray manualkii Puntland laga soo bilaabo caluula dakhliga soo gala isla saacadaas xarunta bangiga dhexe garow waa laga daawadaa iyadana wuu hirgalay iyadana waxaan rajaynaynaa inay xarunta markay dhammaato iyada qalabkii wuu shaqaynayaa laakiin kulligeed inay computers ku shaqayn jirto iyo system maaliyadeed oo sax ah waxaan iyadana ku gali jirnaa inaan revenue-ga kor u qaadno haddii ilaahaydan ka dhigo waxaan runtii bogaadinayaa nidaamka maaliyadeed oo dhan marka la isku xiro isbeddelka ku dhacay waxaan hadda rabaa iyadana qodobka saddexaad oo isna aan highlight garay waxa weeye nidaamka dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan waxa ka qabsooma waan uga mahadcelinayo wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo inta kale ee gacanta ka qaadata oo maanta haabanaysa inay bilaha soo socoto doorasho qof iyo cod ah oo degaan oo 3 degmo ugu horeeyay la qaban doono oo 10 urur siyaasadeed ay ku tartami doonaan iyadana waxa weeye waa guul aan rajaynayo inay tahay in la xuso oo milestone kale ah waxa aan hadda qabanay eber kama aan bilaabin waxaan uga mahadcelinaynaa madaxdii naga horeysay meesha ay soo gaarsiisay intaba waxay u baahnaayeen inaan dhammaystirno inta annaga naga aadan tadawurka go'aano aan hore loo qaadan oo laga soo shaqeeyay oo dawladdan qaadato way jirtaa dhammaadkeedu laakiin hadda ma aha waa wax sii socon doona waxaan rajaynayaa inay dawladdan iyo dawladaha ka dambeeyaba la ilaalin doono nidaamka dimuqraadiga iyada oo qof iyo cod la isdooran doono ayaa waxaan ballan qaadi doonaa 8 Janaayo iyadan inaan la dhaafi doonin oo xilligan lagu qaban doono haddii ilaahay idin ka dhigo qodobadaas waaweyn ee muhiimka ah runtii Puntland waa ay ku ammaanan tahay waxyaabo badan oo aan ka gaabinay way jiraan oo aan rajaynayno inaan 2021 aan xusno waxaa kaloo muhiim ah dhinaca waxbarashada oo runtii hay'adda UNICEF ay qirtay
xilligii COVID-19 ka jiray nidaamka waxbarashada online-ka ah in ay Puntland Africa oo dhan ay number 1 u gashay iyadana waxay ahayd tallaabo qurux badan oo runtii in lagu daydo u baahnayd oo ardaydii aysan ka joogsan waxbarashada oo la dhiirigeliyay in maadooyinkii oo dhan fasalka 12 dib loo daabo waxaa sharaf ah maadooyinkaas waxaa laga qaadan jiray sida aan xogta ku hayo jigjiga iyo inta af Soomaaliga wax ku dhigata jigjiga xataa waa laga dhageysan jiray baa leeyahay sidaan ka warqabo jigjigo manaahijta Soomaaliga lagu qaata iyo magaalooyinka kale ee Soomaalida oo dhan iyo dad badan oo tacliinta muddo badan ugu dambeysay ayaa dib u dhageysan jiray erebixinta Soomaaliga iyo sida tacliintu u socoto iyadana runtii waxay ahayd waxyaabaha aan halka aan uga mahadcelinahay waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka oo runtii ku guuleysatay maareyn mudan in la dul istaago siday ula tacaashay COVID-19ka oo ay mar walba ay ula tacaalaysay iyo xarumaha lagu baaro iyo isbeelaha lagu karantiilo oo dhammaan gobollada Puntland meelaha muhiimka ah laga soo bilaabo Boosaaso Baran maxaa la yiraahdaa Garowe Buuhoodle intaba laga fuliyay iyo magaalooyin kale oo fara badan oo hadda iyagu ay markooda sheegi doonaan oo halkaan ka sheegay waxa iyadana muhiim ah in markaan iyadana wasaaradda qorsheynta 5-year plan-kii oo ka duwan sidii hore loo sameyn jiray oo ah si dawladdu hadda ku shaqeynayso oo mashaariicda horumarineed ay la dul istaagayo ay ku shaqeynayso mid naga horeeyay uu jiray laakiin markaan tix raacnay xilligii la sameeyay xilligii Cabdiraxmaan Farool waha laakiin dabaqadiisa ku dhaqankiisa aad uma hirgelin laakiin kan waxaan rajaynaynaa inuu baahi sax ah ku qotamo dawladdiina ay ku shaqeyn doonto haddii Ilaahay idmo haddana ay la jaan qaaday oo ay ku shaqeynayso iyadana waxay ahayd milestone muhiim ah oo iyadana aan rabo inaan xuso runtii waxyaabaha horumarka oo la socda waxa weeye waa waajibkii dawladdan saarnaa oo ay gudanayso sanad walbana waxaan rajaynaynaa in intii la qabtay in ka badan la sii qabto waxaan Soomaaliya guud ahaan u rajaynaynaa in horumarka Puntland ay gaarayso mid la mid oo ka wanaagsan sida madaxweyne xasan uu sheegay waliba gobolada si ka yar ay ku gaaraan waxaan halka ku tababarnay shaqaale fara badan oo isteediyada ka mid ah Jubbaland baa halka lagu tababaray waxaa maalin dhoweed halka ka tagay agaasimayaal iyo khubaro koonfur galbeed ah oo wasaarado 5 ah la shaqeeyay waxa la siiyay dhammaan habraacyada iyo dokumentiyada iyo siyaasadaha ee wasaaraduhu ku shaqeynayaan oo aan rajaynayno iyaguna inay dabaqi doonaan waxaan sidoo kale heshiisyadaas kuwa la mid ah la galnay Hirshabelle xilligii Waare Galmudug waxaa socda wada shaqeyn joogto ah oo dhinaca maamulka iyo dhinaca amniga iyo dhinaca siyaasadaba ah waxyaabahaas waxa weeye waxyaabaha aan rajaynayno inay Soomaaliya ay noqoto dawlad degan oo federaal ah oo state walba dadkiisu ay adeega ay u baahan yihiin ay dawladdaas statekaas ay ka helayaan maamulka federalismku waa daadejin iyo u dhaweyn adeega dawladnimada ee dadka marka waxaan rajaynaynaa in dadka loo adeego dawladdu u dhawaato dadku aysan dawladda meel ka dheer u raadsan ilaahay idankiisa waxaan rajaynayaa in Soomaaliya khilaafaadka siyaasiga ka jira iyo ismarwaaga ka jira ilaahay inuu fududeeyo waxaan kaloo u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed khilaafka xilligan iyo xilliyada soo socda kulligiis shar ma aha maxaa yeelay dalkii baa dhismaayo markuu dalku dhismaayo waa khasab kala aragti duwanaan baa jirta waa la isqabanayaa nin walba lexjecla ku jirta nin walba si qurxoon oo isagu u arko inay sax tahay ayuu ku doodayaa ugu dambeynta marka haddii dadka qaybtiisa ay sugi waayaan meesha loo socdo oo ay la yiraahdaan ma gaari karnaa waxyaabaha qaybtooda aan ka tanaasulno hadhow way dib ugu soo noqonaysaa marka waxaan kula dardaarmayaa dadka Soomaaliyeed dawlad disku degdeg ma aha waxa la rabaa in si sax loo dhiso oo tallaabo walba meesha ku haboon la dhigo ilaahay idankiis waqtiga ilaahay idmay qaadanaysa laakiin mar rabno intay dawlad noo dhisanto hadda mar walba in la yiraahdo dib baa loo noqonayaa hadda waxa dadka qaybkiis 9 wax u sheegayaan kalsoori darradaas inaysa soo noqon waxa saldhig u ah nidaam dawladeed oo sax ah oo fadhiyo inaan yeelano oo qof walba uu garto meesha kaga aadan dawladda iyo dowrka uu ku leeyahay aad baa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu mahadsan